saaka aroortii hore ayaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil iyo degmooyinka hoos yimaada gobolkaasi ayaa si rasmi ah uga bilowday imtixaanka shahaadiga ee fasalada idharka iyo foorarka. Gudoomiye ku-xigeenka magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil iyo gudoomiyaha waxbarashada ayaa si weyn u soo kormeeray iskuulada ay saaka aroortii hore imtixaanka shahaadiga ay ka bilaabeen, ayagoo dhanka kale ardayda kula dardaarmay inay ka digtoonaadaan waxyaabaha ka khalkhalinaya imtixaankooga ama dhibaato u keeni kara sida qishka iyo mobilka iyo wixii la halmaala. waxaa hadaladoodii kamid ahaa waxaa noo bilaabmaya imtixaanaadka shahaadiga ahaa guud ahaan imtixaanaadka shahaadiga waxaa u fadhiisanaya arday gaadhaysa 1250 500 ka mid waxa weeyaan ardayda secondary-ga u fadhiisanaysa imtixaanaadka foorka 720 ardayna waxay u fadhiisanayaan imtixaanka dugsiga hoose dhexe 18 goobood baa guud ahaan imtixaanka lagu galayaa 7 goobood waa dugsiga sare 12 gooboodna waxa weeyaan dugsiga hoose dhexe. maanta ardayda fariinta halkan u marnay waxa weeyaan imtixaankaaga ardayow ku khalkhal gelinaya ama ka cancel gareynaya iska ilaali, mobilka iska ilaali, waraaqa iyo waxyaabo qish la xiriira iska ilaali. guud ahaan maanta waalidka fariinta halkan u marnay waxa weeyaan inaanay ardayga soo dhiibin wax mobil la yiraahdo iyo waxyaabo la mid ah. ardaygu haddii uu mobil soo qaato laba khasaar baa ku dhacaya, mar imtixaankiisa baa laga joojinaya ku cancel garoobaya, marka kalena mobilkii ayaa laga cancel gareynaya. Baysa maanta inay u fadhiisato imtixaanka shahaadiga ah ee 2018 iyo 2019 sano dugsiyeedka in Ilaahay ku guuleeyo inay noqdaan kuwii wada gudba gaar ahaanna ka soo hooyo guulo dhammaan gobollada dalka. darajooyinka u sarreeya aynu rajaynayno inaynu qayb lixaad leh ka qaadanno. waxa mar walba wasaaradda heer gobol iyo heer qaranba laydinkala dardaarmaa waxyaabaha burin kara inaad ku weydaan imtixaankiinna sida qishka, habsanka iyo wixii la mida. iyadana waxaan idinkala dardaarmayaa muddada uu socdo imtixaanku inaa heegan u ahaataan. ardaydani galaya imtixaanka shahaadiga ee foorarka iyo idharka ayaa si weyn u soo diyaar garoobay ayagoo laga dareemayay wax akhris badan. inta u dhaxaysa labada maado ay kala galayaan aad arkaysay ayagoo su'aalo isweydiinaya. naasir cabdilqaadir cabdiwahaab naasir talasame badacas 24 TV magaalada Hargeysa.